karaysaa. بسم الله الرحمن الرحيم waxaanu saaga ku booqnay xafiiskiisa xogayaha dawladda hoose ee degmada Berbera Cabdikariin Aadan Cadde xogaye kulli hawlo badan baa sanadkii wada dabayaaqo hawlo badan baa ay bilihii dambiye ku jirteen oo dhinaca horumarinta dhinacii wadooyinka dhinacii caafimaadka wax ka qabateen waxbarashadii oo dhinac ka wadeen bal hawlahaasi nooga war iminka waxaanu maartay gacanta ku haynaa oo isbarbar socda laba wado wadadii ugu dambeysay Barasheekh waynagii maartay xariga ka jarnay muddo 15 cisho bay inagu dhamaatay alxamdulillah rabbil caalamiin iminkana wadadii wada jir oo banaanteeda hore wala bilaabay inkastoo aan dhagax dhigin iyo wadada iminka dhamaadka ku dhow maxay ahayd kitaabka halkii aantinada loo yaqaanay baa socota guud ahaana mashaariicda kale ee iyaguna caafimaadka ee degmooyinka kale ku yaalay iyaguna qaar badan baa gabagaba ah xagal 5 cisho 6 cisho ka hor baan ka soo noqonayo 4 mashruuc baan dhagax dhignay oo labana dawladdu ay leedahay labana dadweynaha isku tashadeen marka guud ahaan runtii si fiican baan ku socotaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xildhibaanada golaha deegaanka iyo maamulka aan kamid ahay fulinta waxa kale oo aad ugu mahadnaqayaa agaasimayaasha iyo shaqaalaha dawladda hoose oo maartay runtii u taagan horumarinta gobolkooda iyo degmadooda waxa kale oo mahadnaqayaa dadweynaha reer Berbera oo runtii si fiican oo la shaqeeya kulli maamul daadajin baa dhinaca waxbarashada kale ayaa la sameeyay wasaaradii waxbarashadu xaggii degmada ayaa ay hawshii culayska inta badan la saaray maxaa ugu muhiimsan ee xagga waxbarashada ka qabatay si guud baan doonay inaan sawir ka siiyo maamul daadajinta aan ku guuleysanahay doonay degmada Berbera waxbarashada qoro kuma inaan guuleysanin maamul daadajinta runtii inagoo maxay tahay fulinayna maxay tahay siyaasadda qaranka inagu ilaa hadda xagga wasaaradda laba wasaarad ba xoog inoo la shaqeeya laakiin annaga lafteeda maamul daadajinta waxaanu ka bilaabnay dawladda hoose lafteeda gudoomiyuhu shaqada intuu leeyahay buu qabtaa xogayuhu intuu leeyahay buu qabtaa xogayuhu maadaama uu agaasimayaasha la shaqeeyo awoodii sharci ee ay shaqada ku fulin lahaayeen ay qabsan lahaayeen yani shaqada badankeedu kuma xidhnaa maxay tahay gudoomiye iyo xogeeye kuma xidhna agaasimaha howlaha guud isaga iminka mas'uuliyadda guud maxaa tahay dhismayaasha iyo wadooyinka socdo dhanka mas'uula saxaafadda iyo warbaahintuna way ka warhaysaa shaqadiisa isaga qabsada agaasimaha arrimaha bulshada agaasimaha qorsheynta oo isaguna mashaariicda iminka 2019 kaba gacanta badankooda ku hayay maartay oo isagu dadweynaha u dhaxay iyo agaasimayaasha kale ee cashuuraha kale haduu kamid yihiin iyo diiwaangelinta iyo agaasimo kastaba shaqadiisa qabsanay marka horta ugu horeynaga guudahaynu ka bilownay shaqadiisaas ku socotaa waana ku raaxaysan runtii shaqada marka qof walba intuu leeyahay uu qabto laba wasaarood baa inaga runtii inala qayb weyn ka qaatay maamul daadajinta waan uga mahadnaqaynaa wasiiradooda iyo maamulkaba waa wasaaradda caafimaadka iyo waxbarashada waxbarashada horeysay 42 iskuul ayaa maamul daadajintii ay u soo dhaadhacday waxaa inoogu soo biiray iskuulka aynu iminka 20 cisho ka hor furnay maxay tahay magaalo cad xaafadda Finland marka 300 dheeraad macallin waxaanu ka mas'uulnahay iskuulada maxay tahay nadaafadooda maxay tahay waashmaanadooda gunada macallimiinta iyo gunada maamulayaasha waxa kale oo iminka inoo dheer oo aan anagu maartay tuurta ku qaadanay mar haddii shaqadii ay socoto dhismayaashoodii iskuulana waanu dhisnay iskuulana waanu dayactirnaa dayactirko dhan anaa gacanta ku hayna mandatekiina maaha runtii waa mandatekii dawladda dhexe marka waxaan filayaa mar haddii waaxdii maxay tahay arrimaha bulshada qaybtii waxbarashadu mar haddii xafiis gaara leedahay shaqaale gaara leedahay gaadiid gaara leedahay kormeerka wasaaraddu sida u kormeero dawladda hoosena ay u kormeerto maadaama wax naga galaan qofka ama waad la xisaabtami karaysa بسم الله الرحمن الرحيم وحان maanta la joognaa maamulaha dugsiga Cajab Cabdiqani Jibriil Yuusuf oo aan wax ka weydiin doono adeegyada asaasiga ah iyo maamul daadajintii dawladda hoose ee dugsiyada magaalada Berbera iyo sida ay wax ula qabataan laakiin intii dawladda hoose ay naga caawisay qaybta nadaafadda waxaan jaanis u helay
in ay caruurtii noo hesho nadaafadeeda iyaga qudhooda caafimaadkooda uu wanaagsanaado oo caruurtii aan uga maarano inay galaasyadii noo xaadhaan dumar baa noo yimaada marka sidaa iskuulka looga baxo hagaajiya dowladda hoosaana mushaharkoodii waxoodii gunadoodii siisa alxamdulilah rabbil caalamiin xashiishkii wax walba way naga habeeyeen marka imika laba maalinta saa isku gaayay markii aanu dalbanno gaadhiga aan u baahno gaadhigu waa noo dhoweeye waa naga qaada gunay u samaysay macallimiinta ay ku kabayso macallimiinta waxa la ogyahay inaan waxanay qaataan aanay ku filayn sidaa daraaddeed dowladda hoose maamuldaajinta gunay macallimiinta u samaysay ay naga qaabishay taaqudheeda iyo maamulkaba sidaa daraaddeed aad waa gacan noo dhow oo wax badan naga caawisay waxay faniinjarkay naga caawisaa xagga dhismayaashay naga caawisaa howlo badan oo aasaasiya bay naga caawisaa hadda waxaan ku sugannahay iskuulka cumar bin khadaab oo ah dugsi hoose dhexe waxaan la joognaa maamuladiisii fawsi baashe fawsi muddooyinkii u dambeeyey sanadihii u dambeeyey maamul daadejin dhinaca waxbarashada ah ayay wasaaraddu samaysay oo dowladda hoose ee berbera ayaa wax badan sida la sheegay idinkala qabata adeegyadii dhinaca waxbarashada bal guud ahaanba war naga sii runtii intii ay dowladda hoose ay faraha la soo gashay dugsiyada hoose dhexe runtii wax weyn baanu dee dareennay oo ah dee inaanu markanu baahi ay nala soo dariisto xagga dugsiyada ay tahay meel noo dhow oo si dhaqsaa jawaab aan uga helno markiiba anigoo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe Siciid Daawud waxaan ka warramayaa mashaariicda ay dowladda hoose wax nagala qabato waxyaalaha ay nala qabteen run ahaan marka run laga hadlayo dowladda hoose waxyaalo aad iyo aad u badan ayay nala qabataa waxaa ka mid ah hadday tahay leerka hadday tahay biyaha hadday tahay qalabka galaasyadoo kale waa ka mid kuraasta waxaa ka mid ah ma garanaysaa nadiifisooyinka dadka shaqaalaha ama waashmaana ha noqdeen ama ha noqdeen dadka iskuulka nadiifiya kuwaana lacagta iyagaa siiya mushaharka iyagaa siiya qalabka iskuulka iyagaa ma garanaysaa iyagaa keena waxyaalo aad iyo aad u fara badan ayay nala qabtaan waxaa kaloo ka mid ah iskuulka dhiskiisa iyo hagaajintiisa iyagana waxbaa laga qabtaa macallimiinta laftigooda gunno ayaa la siiyaa marka waxyaalo aad iyo aad u fara badan ayay nala qabtaa waxaan odhan karaa midda keliya ee aan ku tiirsannahay inay taa tahay maanta waalidka waxba dee lagama qaado wax lacaga lagama qaado carruurtu bilaash bay ku dhigtaan ardayda ku dhigtaan waxa cidda keliya gacanta ku haysa ee wax nala qabataa waa dowladda hoose weeyaan mashruucii GBLG-ga ayay naga soo gaadhaan marka waxaanu jecellahay waxyaalo yaryar ayaa jira iyagana aanu tabanayno oo naga dhiman insha allah kuwana waxaanu rajaynaynaa in waqtiyada dambe ama sanadka cusub inna loogu soo dari doono haddii ilaha yidhaahdo waxyaalahaan u baahnay waxaa ka mid ah tababarka macallimiinta oo kolley u baahan in la tababaro sidii wasaaradda loola taageersan lahaa waanu u baahannahay waxaa kaloo ka mid ah gunnada laftigeeda macallimiinta kolley in wax naloo kordhiyo macallimiinta wax loo kordhiyo ayay u baahan yihiin kuwaana insha allah waan rajaynaa sanadka cusub maana arkaysaan waa library-ga weyn ee magaalada berbera waxaa la asaasay 3 sano ka hor ayaa dhismihiisa la asaasay laakiin sanadkan imika aynu ku jirno 2018 ay sii dhamaanayaan bartamihiisii ayaa xadhigga laga jaray waa dhismaha ugu weyn ee rugta kutubta ay Soomaaliland laga hirgeliyay 27 sanadood intii Soomaaliland ay xorriyadda kala soo noqotay dalkii la isku oran jiray Soomaaliya gudihiisa markaad gasho waxaad ugu tagaysaa buugaag badan oo lagu soo camiray library-gan xataa waxa lagu tala galay ardayda dugsiyada in ay wax ku bartaan oo ay xilliyada ay Chinese leeyihiin wax ku akhristaan waxaad ugu tagaysaa oo kale sheekooyin cajiib oo buugaag sheekooyinkii cajiibka ahaa ee dadkii hore ay qoreen ama iskuuladii hore lagu dhigin jiray oo caruurtu aad u xiiseynayso oo juxa ka mid yahay oo rag badan oo ina xagaa dheer ka mid yahay buugaag taariikheed midda kale ugu tagaysaa iyaguna oo wax badan ka sheekeynaya caalamka iyo tii Soomaalilandba
library-gan dhismihiisa iyo shaqadiisa iyo gacan ku-hayntiisaba waxaa haysa dowladda hoose. madaxweyne waa berberaynu joognaa berbera waxaa la yidhahdaa meesha maamul daadejinta si fiican oo weliba sidii la rabay si ka badan looga hirgeliyey weeye wixii laga filayey wax ka badan taas waxay noo horseeday in berberi ay dowladdii dhexe ku niyad samayso in dowladaha hoose lagu daadejiyo maxaa yeelay dhinac kastaba hadday caafimaadka noqoto hadday tacliinta noqoto hadday NRM-ka amba environmentka deegaanka noqoto biyaha sidii la rabay si ka badan ayay uga qayb qaateen wixii budgetkii la rabay ee loogu talagalayna way faradhaafiyeen marka waxaad garan kartaa marka la isku tashado in ay macaasameeyeen hedhadh yacni dhalinyarada derbijiifka dhimashada iyo certificate-ka beerska iyo death certificate-ka waxyaabo fara badan oo maamul daajinta weli aynaan bilaabinba in ay iyagu sii bilaabeen iyagoo ku qancinaya dowladda dhexe in ay dowladaha hoose hanan karaan maamul daajinta